haddaad rabto inaad ogaato Habitat for Humanity guryaha la yiraahdo siday u shaqeeyaan iyo haddii la barbardhigo guryaha conventional house dadka caadiga iibsanaya farq u dhaxeeyo waa the only video aad u baahantahay inaad daawato. So maanta waxaan ka hadli doonaa horta what is Habitat for Humanity maxay yihiin, who qualifies yaa u qalmi doono, waxaan ka hadli doonaa the difference u dhaxeeyo Habitat for Humanity iyo kuwa conventional caadigan ka hadli doonaa, waxaan ka hadli doonaa what is the downside of the Habitat for Humanity, maxay leeyihiin ciladahan, maxay yihiin dadka u iibsan laayihiin guryahan Habitat for Humanity dadka qaar ay kaga cararayaan. walaal soo dhow magacayga waxaa la yiraahdaa Daahir, halkan waxaan ka hadlaa real estate investment. bulshada waxaan ka caawiyaa guri inay iska sii gadaan, guri cusub inay iibsadaan si ay u sameeyaan hanti dhaxalgal ah. insha Allah haddii aan arrimahaasi si aan kaga caawiyo waxay ka soo qabataa website-kayga sahanrealty.com. numberkana shaashada ayaa ka arki doontaa. haddii aad rabto arrimaha real estate investment ka xayisiisana insha Allah igu soo boqo website-kayga sahaninvestor.com. horta what is Habitat for Humanity ka hadalno. Habitat for Humanity waa guryo qiimo jaban ee dhisaan kuwa loo yaqaan non-profit organization oo loo yaqaano Habitat for Humanity, kuwaasoo la kaashanayo kuwa loo yaqaan volunteers dad caawinayo si guryaha u dhisaan. laakiin dadkan maxay u sameeyeen aslada laga yaabo su'aasha kale aan kaaga jawaab. su'aasha waxay u sameeyeen inay soo gaabiyaan bay rabaan baahida ka jirta guri la'aanta ah waliba dadka dakhligooda uu hooseeyo. So haddaan ka hadalno Habitat for Humanity, there's two types jirta Habitat for Humanity. The other one waxa loo yaqaan open market, the second one waxa loo yaqaan partner home ownership program. So the first one haddaan ka hadalno oo loo yaqaano open market kan target out dadkan waxa loogu talagalay broader audience loogu talagalay dad fara badan oo haddii income-kaada uu hooseeyo ama income-kaada xoogaa meelaha uu yahay 60,000-70,000 oo yahay kale still ku qaadan inay guriga ku iibsato. waxaa kaloo ugu fiican yihiin waa less restrictive waaye, so sharciyada isticmaalayaan kuwa kale isticmaalayaan wuxuu ka qafiifsan yahay. Number 2, partner home ownership program kan waxaa loogu talagalay dadka target audience-kooda waa dadka dakhligooda aad u hooseeyo, waliba dakhli ahaan waliba waxaan ka hadlayaa dadka low income-ka ayay target-kooda u yahay oo income-kooda aad u liito. So dadka ayaa loogu talagalay. laakiin haddaan ka hadalno yaa u qalmayo, su-aasha kale dadka isweydiinayaan yaa u qalmay, see ugu qalmaya aniga. So waxay fiiriyeen wax loo yaqaano AMI oo loo yaqaano area medium income ee ahaan. haddaan soo qaato hadda shaashada, haddaad website online Google aado AMI ku qorto usually uu ku soo bixi doonaan. website kale oo Fannie Mae la yiraahdo iyo ku gudbin doonaa, waan arki doontaa zip code-kaada gelinaysaa uu ku tusaya exactly. hadda shaashada aan ka tusayo kale ka tusaya the area medium income Minneapolis ka soo qaado kale waa 123,700 waa hadda area medium income-ka. laakiin wuxuu kala baxaan 100%, 80% iyo 50%. still even 50% that tahay kuwan guryahan Habitat for Humanity still uma qalmaysan nasiib daro. haddii maanta aad location ahaan meesha aad geliso 80,000 aad samayso, like let's say zip code-ka gelisay 80,000 waaye that neighborhood-kaasi meesha aad gurigana ka iibsataa rabto, at least income-kaada inuu yahay inta u dhaxeeya 24 to 64,000 baa loo baahan yahay si aad ugu qalanto guryahaasi. mararka qaar inuu ka hooseeyo ayaa loo baahan yahay. So waxaa kale ay kugu xirayaan oo shuruud ah ay kugu xirayaan shuruudaha kugu xirayaan still waxaa la rabaa even dakhligaada hadduu hooseeyo inaad guriga lacagta iska bixin karto. haddii lacagta iska bixin karin oo monthly payment-iga nasiib dar uma qalmaysid. laakiin waxaan ku sheegay hadda faa'iidaday leeyihiin guryaha dadku waxay u iibsanayaan ku sheegay faa'iido ahaan. number 1, guryahan waa guryo qiimo jaban. waxaa kaloo ku fiican yihiin interest may leeyihiin inaad isweydiisaa laga yaabo. su-aasha kale dadka isweydiinayaan ha interest way leeyihiin, laakiin interestiga marka suuqa kale loo barbardhigo aad buu uga jaban yahay. waxaa kaloo kugu xiri doonaa shuruud ah wax loo yaqaan sweet equity oo ah inaa adiga 300 oo saacadood ay geliso gurigaasi, aad caawiso dadka volunteerka guryaha dhisaya ama alwaaxid u dhidhiib ama wax hagaaj inaad shaqada la qabato. waxaa kaloo ku fiican yihiin dadka u iibsanayaan wax loo yaqaan no down payment or wax loo yaqaan low cost oo ah inuu down payment-igooda uu jirin gabi ahaanba ay ka baabi'iyaan ama wax qiimo aad u jaban ay ka siiyaan lacagta down payment-iga aad dhigayso, lacagta aad dhigayso. waxaan ku sheegay hadda ciladaha dadka kaga cararayaan ee dhibaatada ay leedahay ummadda Soomaali fara badan ay bulshada ay u iibsan lahayn guryahan. wax loo yaqaan waxay leeyihiin resale limitation oo basically marka gurigaada siiqa inaad sii iibisa aad rabto kale. let's say gurigaada qiimihiisa kor u kacay, ayagu sidee rabaan guryahan ay jecel yihiin waxay sameynayaan gurigana maanta iibsatay 300,000 baa ku iibsatay, maanta wuxuu marayaa 600,000. ayaga hadhow marka sii sell garanaysa gurigan waxay isku dayaan in qiimihii full-ka aad ku iibinin ama aad ka iibiso qofka low income ka iibiso laakiin qiimo jaban uga iibiso. dhibaatadaas ayay leeyihiin. waxaa kaloo cilada kale ay leeyihiin waxay tahay wax loo yaqaano restricted location and home styles. guriga adiga ma dooran kartid qaabka lagugu dhisi lahaa ama qaabku siduu yahay ma dooran kartid. so qaabka waxay dhisayaan guryo loo yaqaano cookie cutter bay dhisaan oo isku wada eg oo aan style-kooda isku mid yihiin. location ahaanna adiga ma dooran kartid sababtoo waxay sameeyaan dhul bay iibinayaan weyn, barxad weyn bay iibinayaan, dhulkii bay kala jarjarayaan, guriyihii waa la dhisayaa. guryaha dadka dhisaayana badanaa waa dad volunteer ah oo dad adiga isku tagnay way noqonaysaa oo ay contract qof engineer uu ku jira meesha ay hayarteen oo hagaajinaya, laakiin badanaa dad oo isku imaaday waay dadkaasoo meesha guriga ay dhisayaan. waxaa kaloo ku xun yihiin oo kale badanaa markay guryaha dhisaayaan maadaama dadka ay targetkooda uu dad low income yahay
even materialka isticmaalayaan materialada ugu fiican maaha. Materialka waa guriga qabka lagu dhisaayo waaye, waa alwaaxyada lagu dhisaayo, everything isticmaalayaan waa laga yar fiican yahay, waa wax aad qiimo u jaban waaye. laakiin badanaa waxaa kaloo cilada leeyihiin dadka qaar ay u iibsanin income ahaan waxay noqonaysaa almost inaan lacag waxba aad samaynin oo aad dad inaad ka hoos marto the area minimum income kan ku sheegay hadda aan ka soo hadlaynay inuu ka hoos maraa loo baahan yahay at least like 30 to 80% inaad ka hoos martay rabaan. So basically haddaa 100,000 samayso uma qalmaysid, haddaa 60,000 samayso uma qalmaysid, haddaa 2 qof ku samaysaan 60,000 uma qalmaysid. So basically inaad waxba samaynin waa basically waa curyaamin la mid tahay. oo dad kale waxay kaga cararayaan waa requirementiga aan ka hadlaynay dadka ku xiran shuruudkan oo ah sweet equity inaad saacadaha geliso 300 saacadood inaad geliso lagaaga baahan ma jecel dadkana sameeyaan. So hawlaha fara badan kulli ciladahaas u dhamay leeyihiin yes dadka qaar taas kaga cararayaan. Laakiin haddii aad kireysata maanta ama aad rabto guriga inaad iibsato labadoo aan isbarbardhigo aniga waxaan kula talinayaa waxaa ku macquulgal ku ah inay iibsato gurigaasi Habitat for Humanity-ga. sababta guriga even qiimahooda kor uma kacaan sida loogu talagalay just like wax loo yaqaan appreciation jira qiimaha kor guryaha u kacayaan badana. The reason saa u dhacayso waxay tahay markay dhulka iibsanayaan dhul waxay iibsanayaan weyn oo barxadda saan ka soo hadalnay oo dadka haddana waxay isugu keenayaan dad wada low income oo dakhligooda wada hooseeya. ciladan waxay ka taagan markay dadka low income ka dakhligooda hooseeya meesha ay ku bataan waxaa badanaya crime rate ka badanaya. Hadduu crime rate ka bato meesha guryaha qiimaha hoos u dhacayo, hadduu guryaha qiimaha hoos u dhaco adiguna faa'iido ka raadinaysa gurigan the whole reason aad u iibsanaysa waxay ahayd inaad hanti ka samaysto hanti dhaxalgal ah tiina ma dhacayso tii haddii dhacay wasana faa'iido kuma laha adi faa'iido badan kuma laha. Laakiin haddaa rabto meel aad ku sii noolaato guriga qiimaha yar yar oo kor u kacayo waxaan kula talinayaa iibsato guri Habitat for Humanity caadi waa iibsan kartaa. Laakiin haddii aan isbarbardhigo guryaha kale caadiga 100% waxaan kula talinayaa guri caadi nadiif ah adiga aad xorriyad u haysato iibso aan hadhow lagu dhahayn ma sii gadi kartid saad ma samayn karto xorriyadaasi. And the whole point ee gurigan u iibsanaysana inaad xorriyad hesho waay. Laakiin haddii aad rabto inaad kireysto noloshaada inta ka dhiman aad niyadan ku hayso inaad Habitat for Humanity iibsato waxaa kaaga macquulsan Habitat for Humanity inaad iibsato waayo maadaama guriga qiimihiisa yar yar hor u kacayo hadda kirada aad bixinayso lacagtaasi dib uma arkaysid. Kiradana bil ka dambayso waa lagugu dalacaya oo aad ma control kartid. Laakiin gurigan kirada waa control kartaa. Kirada kor waxaan ku wadaa mortgage-kan waxa kor u kacaya kaliya waxay noqonaysaa waa property tax-ga oo ah lacagta canshuurta waa gurigaada hadduu qiimihiisa kor u kacaya. So inshallah intaas aan iga tagaya. Haddii aad rabto asagoo dheeraad ah waxaan hayaa whole document hayaa oo ku saabsan Habitat for Humanity inshallah warqadda way ka codsan kartaa. Inshallah haddii aad rabto si aad u aragto video noocan oo kale inshallah na soo follow garay. Haddii aad rabto gurigaada inaad iska sii gado ama guri cusub inaad iibsato waliba guriga Habitat for Humanity aad iibsato oo open market ka iibsanayso aniga waxaad ka soo qoran kartaa website-kayga sahanrealty.com. inshallah waan salaamaya. Assalamu alaykum.